munaasabadan ballaaran ee ciidamada jandarmaariga ay maantay ku xuseen sanad guurahoodii 36aad ayaa waxa ay ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaana lagu qabtay xerada Sheekh Muuse oo ku taala duleedka caasimada waddankani Jamhuuriyadda Djibouti. munaasabadaasi ayaa ciidamadu waxay ugu horeynba halkaasi ku soo bandhigeen safaf dhaadheer oo garba siman ah kaasoo ay ku muujinayeen awoodda ciidaneed ee jandarmaariga iyo qaabka ay u habaysan yihiin tababarkooda. waxaa sidoo kale goobtaasi ay ciidamadu ku soo bandhigeen muusigyada kala duwan ee ciidamadu ay leeyihiin, waxaana sidoo kale goobtaasi heeso ka soo qaaday qaar ka mid ah kooxaha waddankani Jamhuuriyadda Djibouti, gaar ahaan kooxda Xarbi. munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay madax uu hormuud u ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Dilayta Maxamed Dilayta iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. muddadii munaasabadaasi ay socotay ayaa waxaa hadal ka jeediyey taliyaha ciidamada jandarmaariga Cornel Sakariye Xasan Aadan, waxa uu goobtaasi ka sheegay in ciidamada jandarmaariga sanadkii la soo dhaafay ay qabteen hawl ballaaran. waxa uuna isagoo ku hadlaya afka Faransiiska yiri sida tan: Bien sûr, je tiens également à remercier tous nos invités qui ont tenu à honorer de leur présence cette cérémonie. Officiers, sous-officiers, gendarmes, nous sommes réunis aujourd'hui au sein d'un... ayaa sidoo kale waxa uu Ilaahay uga bariyay naxariistii janno ciidamadii iyo waliba dadkii u geeriyooday ammaanka dalkani Jamhuuriyadda Djibouti iyo difaaciisa. sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Dilayta Maxamed Dilayta, waxa uuna goobtaasi ka sheegay in ciidamada jandarmaarigu ay hawlo ballaaran qabteen sanadkii la soo dhaafay. Messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, personnel du rang, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une grande fierté que je participe avec vous à la célébration du 14e anniversaire de la gendarmerie. dib waxaa ciidamadu ay goobtaasi ku soo bandhigeen socdaal gaada ka ciyaar ah oo gaardi ah oo ay ku marayeen waddo weyn oo ku taala xeradaasi bartankeeda, waxaana gaada ka ciyaarku uu ahaa sida tan, iyagoo ciidamadu qayb u marayay.
munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa waxa ay qayb ka tahay munaasabada la dhigo sanad walba marka la gaaro xilligan waxaana munaasabadan 36aad ee ka soo wareegatay marka la aasaasay ciidamada jandarmaariga ee wadankani ay qayb ka tahay hanaanka horumarineed ee ciidamada iyada oo goobtaasina loogu tolay garaado qaar ka mid ah ciidamadii iyagu goobtaasi maanta joogay munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa waxa ay qayb ka tahay munaasabada la dhigo sanad walba marka la gaaro xilligan waxaana munaasabadan 36aad ee ka soo wareegatay marka la aasaasay ciidamada jandarmaariga ee wadankani ay qayb ka tahay hanaanka horumarineed ee ciidamada. Mikael Cabdirashiid Bare, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Djibouti.